الله 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 لقاء بشير كانوا مركوب البوري انتوريو اسمه قرحلي محل دولة ما يكتبي محل دولة ما يكتبي محل دولة ما يكتبي الله 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 لقاء بشير بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله ميل كستود عالم كجوجتان ومركل iyo barnaamijkii horumarka dalka oo aalaaba kala socotaan isbuuci bamar warbaahinta qaranka qaybaheeda kala duwan waa Maxamed Cali Juxa oo aalaaba idila socodsiiya barnaamijka horumarka dalka toddobaadkan ayaa barnaamijkan waxaan diiradda ku saaraynaa shirkado Soomaaliyeed oo isu tegay oo markaasi ku soo kordhiyay wadanka horumar la taaban karo isla mar ahaantaana ay ku soo bandhigeen waxyaabaha ay soo saaraan ama waxyaabaha ay ka shaqeeyaan oo ay wadanka ay ku soo kordhiyeen toddobaadkii tegay ayaa bandhig laga sameeyay magaalada Muqdisho isla mar ahaantaana lagu soo bandhigayay shirkadahaasi waxyaabaha ay wadanka ka qabteen iyo waxa ay u qabteenba toddobaadkan ayaan waxaan diiradda ku saaraynaa inaan eegno waxyaabihii ay soo kordhiyeen ama horumarkii ay ku tallaabsadeen qaar ka mid ah shirkadahaasi iyo badeecadihii iyo alaabihii markaasi ay wadanka ku soo kordhiyeen kuwaasi oo aad loogu baahnaa haddaba toddobaadkan ayaan barnaamijkan waxaan diiradda ku saaraynaa howlahaasi iyo maxay ahaatay dalka Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan magaalada Muqdisho ee caasimada dalka ayaa waxa ka socda horumaro dhan walba leh iyo isbedelo isdaba joog ah oo ay kaalin weyn oo mug leh ka qaadanayaan bulshada qaybaheeda kala duwan iyo dawladda hay'adaheeda kala gedisan oo ay ka mid tahay dhanka horumarka ganacsiga siyaasadda iyo dhaqaalaha ganacsatada Soomaaliyeed ayaa waxay ku soo bandhigeen magaalada Muqdisho bandhiga Muqdisho Auto Expo oo markaasi lagu soo bandhigayay horumarada laga gaaray ganacsiga gawaarida noocyadooda kala duwan iyo qalabkooda oo in badan oo bulshada ka mid ah ay aad ugu riyaaqeen adeegyada kala duwan ay u fududeeyaan ganacsatada ku howlan horumarinta ganacsigooda gaadiidka marka la yiraahdo bandhigan oo kale waxaa qabta wadamada lacagta leh Dubai iyo Toronto Auto Show waa show caan ah Dubai sidoo kale Soomaaliya lagama filaynin inay qabanayso bandhig sidan oo kale ah wadamo aanan taariikhdeena garanaynin ayaa runtii u haysta inaan istaahilno oo kaliya baabuurta la soo isticmaalay in wadankeena la keeno shirkadda Dahabshiil runtii waan u mahadcelinayaa shirkado kale oo badanna waxaan rajaynaynaa inay ku daydaan sida aad arkaysiin waxaa yaala baabuurta cusub markii la yiraahdo anaga wasaaradda gaadiidka ahaan waxaana loo keenaa baabuurta taargooyinkooda iyo laysankiyaana laga qaataa markii la keenay gaari cusub
waa gaari la soo isticmaalay intaasoo sano soo socday laakiin hadda waddankeena waxaa lagu iibinayaa gaari aanan weligiis la dhaqaajinno gacanta ugu horreysay ee wadan doonta uu yahay qof Soomaaliyeed oo Soomaaliya ku nool magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu qabtaa bandhigyo kala duwan oo markaasi lagu soo bandhigayo waxyaabo kala duwan ayaa haddana howlahaasi waxa uu istaaga dhalinyarada Soomaaliyeed oo kaalin weyn ka qaadanaya horumarka dalka iyaga oo goor walba isku daya inay soo kordhiyaan hal abuuro dhaxalgal ah waxtarna u leh bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan iyaga oo dadaal iyo juhdi dheeraad ku bixiya sidii waddanka uu noqon lahaa mid dhan walba ka quruxsan dhan walbana ka horumarsan iyaga oo si joogto ah u isticmaalaya tamarta gudahooda ku jirta soona bandhigaan hal abuurka gudahooda ku kaydsan bandhigan waa bandhig gaadiid wuxuu dhici doonaa insha Allah maanta wixii ka dambeeya sanad walba wuxuu noqon doonaa meel laga soo galo Muqdisho meel laga soo galo Soomaaliya wuxuu noqon doonaa albaab laga soo galo East Africa markay imaado automotive markay imaado ma ay kaliya bandhig rag dhalinyaro iska soo qaban qaadiyeen wuxuu noqonayaa bandhig qaran oo noqonayaa waa bandhig hadda kadib marka la rabo Muqdisho inay hore sar u qaadid ee sameysay ay ka bilaabi lahayd markay imaado battery markay imaado tire markay imaado oil waxaan rajaynaynaa insha Allah hadda wixii ka dambeeya lagu sameyn doono Soomaaliya lagu sameyn doono ayadoo dadka investors iyo dadka ku fikiraya businesskaas ay ka soo mari doonaan gateway ay ka soo gali lahaayeen inay ku soo bandhigi lahaayeen businesskooda inuu u noqdo Muqdisho Auto Expo inuu u noqdo waxaan dareemayaa farxad badan waxaan dareemayaa wajiyo qurux badan oo soo eegayo leh gudoomiye waa maasantahay idinkana aad u maas ganacsatada horumarka ka sameeyay ganacsiga dalka ayaa waxaa ka mid ah shirkadda Shaakir shirkadda Dahabshiil iyo kuwa kale dalka Soomaaliya intii uu burburka ku jiray iyo waqtiyadii ugu dambeeyay ayaa waxaa la keeni jiray gawaari la soo isticmaalay oo laga keenay wadamo kala duwan hayeeshee haatan waxa ay suura geliyeen shirkadda Dahabshiil iyo shirkado kale in waddanka keenaan gawaari cusub oo tayo leh kuna habboon bii'ada lana falgeli kara ganacsatada keenta gawaaridan ayaa waxay sheegeen in qiimaha la kala siisto gawaaridan ay yihiin kuwa aad uga jaban marka loo eego qiimaha caalamka la kala siisto Dahabshiil dunida inagu garata maadaama aanu halkaa ka sheegno cidda magacana siisanay tahay dadweynaha iyaga qaaliga waxaan isku daynay inaan hor u tallaabsanno oo aanu keenno gaadiid runtii noocyada ugu casrisan ee laga isticmaalo caalamka Hyundai waxa lagu sameeyaa dalka South Korea waa shirkadaha runtii hadda tartanka ugu jira inay qaybta koowaad ama labaad ay ku guuleystaan marka laga hadlayo xagga teknolojiyada casriga ee gaadiidka baabuurtan oo qiimahooda runtii noqon doono qiimo aad uga jaban qiimaha laga siiyo caalamka kale waxaanu runtii ka fakiray muddo aan 2 sano ka yarayn inaanu soo xullo baabuur ku habboon bii'adeenna dhaqaalaha waan la soconnaa laakiin markaad eegto baabuurta ugu fiican ee macquulka ah ee dadku isticmaali karaan ayay noqdeen gawaarida cusub ee ay ganacsatadu dalka keenaan ayaa waxaa barbar socda inay helaan qalab lagu dayactiro si markaasi ay u fududaato cilad bixintooda waaba haddii ay cilad ku timaado midaana waa baahi soo food saari karta dadka leh gawaarida ama horay u iibsaday shirkadda Shaakir ee ka howlgasha dalka Soomaaliya oo iyadu bulshada u fududeysay sidii ay ku heli lahaayeen qalabka iyo agabka dayactir ee gawaaridooda
shaakir waxay caan ku tahay dayactirka gaadiidka ay ugu horeeyaan gawaarida taayiradiisa gawaarida taayirada gawaarida bayteriyaasha iyo waxa la xiriira oo dhan waxay kaloo caan ku tahay oo ummaddu nagu taqaanaa sidii hadaaya bankayba uu meesha ka sheegay haweenkii aan helin joodariga shaakir wuxuu yidhi ayaday u taallaa marka waxaan idiin sheegaynaa meesha aan ka soo bilownay fikirka ah inaan samayno warshado isbuunyo dayactirka gaadiidka waayadii hore waxaan ka keeni jirnay baalkan isbuunyada la yidhaahdo ama warshadda waxa hadda aan ku samayno warshadaha Kenya aan ka keeni jirnay waddanka dariska nala ah waxaan ka fikirnay markaan in badan ka ganacsanaynay in aan soo saarno joodariga qaabo kasta oo hore loo qaadayo ama horumar kasta oo lagu talaabsanayo waxaa jira meel uu ka bilowdo iyo meel uu ku dhammaado ganacsiga waxa uu leeyahay shuruuc loogu talagalay sidoo kale gawaarida iyo wadooyinka ay maraan wax walba oo dalka Soomaaliya yaalana waxa uu leeyahay sharciyo loogu talagalay in lagu kala hago sharciyadana waxa laga soo saaraa golaha baarlamaanka Soomaaliya oo ah golaha sharci dejinta dalka waxaana muhiima laga maarmaan ah in la helo sharciga wadooyinka iyo hay'adihii maamuli lahaa si markaas ay u suura gasho habsami u socodka arrimaha sharciyada wadooyinka iyo sidoo kale in la helo sharciga taraafikada dalka annaga ka baarlamaan ahaan runtii waxba naga saaran waxay tahay markaan aragno horumarka ganacsiga horumarka baabuurta iyo horumarada kale oo dhan inaan fududeyno sahalnana shuruucda dalka waxaan gacanta ku hayaa baarlamaanka golaha shacabka waxaan gacanta ku haynaa runtii sharcigii jidadka iyo hay'adihii maamuli lahaa waxa kale oo pipeline-ka noogu soo jiro sharcigii taraafikada oo muhiim u ah maanta runtii ay ahayd in la dhammaystiro maadaama baabuurtan cusub oo qurxoon uu dalkeenu ku soo kordhay kaasna isaga aan ka shaqay doono inta uusan xirmin baarlamaanka tobanaad lana saxiixi doono wasiir waxa muhiim ah runtii inaan ka wada hadalnay ay tahay in la iswaafajiyo ganacsatada Soomaaliyeed way joogaan madaxdii dalka ugu sarreeyay wasaaradda gaadiidkana way joogtaa in la iswaafajiyo dalkeenu wuxuu lahaa nidaamkaas oo ah dhinaca laga wada baabuurta runtii ayna tahayna in la taabto waxaan aragnaa inay dalkeenu uu soo galay intii burburka dalkeenu ku dhacay baabuur aan loo ogolaan lahayn inuu dalka wada haddii aan leenahay dawlad waa baabuurta laga wada dhinaca midigta nidaamkeenu wuxuu ku dhisay atinka traffic inay fadhiso nidaamkeenu wuxuu ku dhisan yahay runtii inaan ka wadna dhinaca bidixda iyo jidadkeena markaa fiirsid shilalka dhacaya ama bajaajka ama baabuurta dhacayna waxa keenaya nidaamkii iyo dhinacii laga wada oo aan islahayn in la iswaafajiyo marka oo baabuurta iman doonto oo cusub ay waafaqsanaad raacdana shuruucda dalka u degsan in la gaaro guul iyo horumar waxay u baahan tahay in la aamino in guul la gaari karo horumarna lagu talaabsan karo waxaana jira laba qaybood oo bulshada ka mid ah oo haddana wax farqi ah ku soo kordhin karin adduunyadan kuwaasi oo kala ah kuwa ka baqaya inay isku day sameeyaan iyo kuwa ka baqa inaad guuleysatid ama aad horumartid dalka iyo dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa u dhuundaloola arrimaha tiknoolajiyadda iyo gawaarida casriga ah ayaa waxa uu yoolkoodu yahay sidii ay u gaari lahaayeen soo saaridda gawaari casri ah oo Soomaaliya laga sameeyay midaasi oo ay si weyn u aaminsan yihiin dad kale hanka sare ayna aaminsan yihiin wax walba oo dadaal xoogan lagu bixiyo ugu dambeyn la gaari doono inkasta oo haddana ay ka soo sokeeyaan caqabo badan ay yeeshee laga gudbi annaga waxaan iibinaa oo caan ku nahay taayirada baabuurta noocyadooda kala duwan hadday ahaan lahaayeen kuwa waaweyn oo birta culus oo TR-ka la yiraahdo
hadday ahaan lahaayeen kuwa yaryarka oo gawaarida raaxada BCR-ka la yidhaahdo iyo hadday ahaan lahaayeen baabuurta waaweyn ee traakiska loo yaqaano alaabtooda macnaha ma aha taayir keliya ma aha bateri keliya waxa weeye wax alla wixii la xidhiidha hadday ahaan lahayd waxaa taayirada ku jira hadday ahaan lahayd bateriga baabuurka qalabkiisa oo kala duwan oo idil marka hawshaas insha allah sidii aan uga fikirnay maalin maalmaha ka mid ah soodargii aan ka keeni jirnay waddan deris nala ah waxaan rajaynaynaa inaan warshad taayirada samaysa aan halkan ka aasaasno waa fikir labaad waana ku guulaysanaynaa insha allah haddii ilaaha idmo waxaan rajaynaynaa madaxdii shalay nagu garab gashay inay maantana nagu garab geli doonaan annagoo kaashanayna kastamarkayaga macaamiisheenna dadkeenna madaxdeenna ganacsatadeenna waxaan rajaynaynaa insha allah inaan mar labaad aan ku guulaysanno gaadiidkan wuxuu runtii wax weyn ka qabanayaa environmentka iyo pollution waxay yidhahdaan ama waxaan hawada wasakheeya waxaa jira carbon monoxide wax la yidhaahdo carbon hydrocarbonis carbon ama nitrate oxides sulfur oxides waxaasoo dhan waxay sababaan qofka bini aadamka inay ku keenaan neefqabato wadnaha sanbabada intaasoo dhan bay wax u dhibaan runtii waxaanu ka fikiraynay maadaama dahabshiil ay tahay shirkadaha hoggaanka u haya raac mushtariga soomaalida inaannu u tafaxaydano geed gaaban iyo geed dheer u korno sidii aanu u horumarin lahayn teknolojiyada iyo dadkuna inay helaan baabuur ku raaxaystaan ammaan leh laga heli karo aan idhaahdo awooddii shidaal aad u yar iyo raaxadii ay u baahnayeen ilaahay baa badbaadada haya waxaanu culays ka raadnay waxa la yidhaahdo badbaadada ama safety-ga horumarka waxaa laga yaabaa inay ka raadinaysiin meelo kale laakiin taas waxay ku tusaysaa horumar haddaad aragto baabuurta xamuulka ee waddankeena joogo haddii aad aragto baabuurta qaarkood oo waddanka socdo dadku waxay u qaadanayaan in waddanku weli uu meel fog marayo waddanku isbeddel ayaa ku dhacay dhaqaaluhu wuu kobcay maanta waxaa maraynaa xilli qof xamar joogo gaari aanan ahayn gaari ganacsi oo gaari lagu socdaa laga fikirayo in lacag aad u badan lagu iibsado waana dhacaysaayo hadda waad aragtiin mar labaad mar saddexaad shirkadaha ganacsiga ah ee waddanka horumarkiisa aad ooga shaqeeyo sida shirkadaasi dahabshiil iyo kuwa la midka ah waan u mahad celinaynaa dhallinyarada isa soo abaabushay intan hadda aa arkaysiin samaysay bahda saxaafadda dhammaantood iyagana way mahadsan yihiin dad badan ayaa Soomaaliya waxa ay ka aaminsan yihiin inay tahay kaliya waddan dhibaato ku jira oo hal gees kaliya wax ka eegaan dadka qaar ayaa markaa Soomaaliya lagu soo hadal qaado waxay aaminsan yihiin inuu yahay waddan ku badan qaraxyada dilka dhibaatooyinka kala duwan hayeeshee dalka Soomaaliya ayaa waxa uu si weyn ugu soo kabanayaa dhibaatooyinkii soo maray ee laga soo gudbay haatan uu dalka sameynayo horumar kala duwan iyo isbeddello la taaban karo oo dhanka hor u socodka sida horumarka siyaasadda dhaqaalaha amniga iyo arrimaha bulshada ganacsato ka socota wadamo kale Soomaaliya interest ku ah in ay ganacsi ka sameeyaan ayaan habeen dhaxdaasi la kulmay intaanan ganacsatada la kulmin waxaan la kulmay dad Soomaaliya ka soo shaqeeyay oo ajnabi ayagana waxyaabaha ugu yiraahdeen waxa ka mid ahaa warka waxaan ka maqalnaa qarax iyo dhibaato marka waxaan ka cabsanaynaa dadkan dhinaca kale ee Soomaaliya ooga sheekay marka aragto innaga waan u sheegnaa laakiin adiga ha ka maqlaan marka eventska sidan oo kale ah marka aan qabanno marka aan soo bandhigno baabuur cusub dad Soomaaliyeed ay u iibsanayaan inay ku socdaan iyo horumarinta gaadiidka iyo shirkadihii sameyn lahaa gaadiidkaas oo service gareyn lahaa oo qalab casri ah wato iyagana oo aanan ka duwanayn qalabka wadamada kale ee baabuurtooda lagu sameeyo casriga ah waddankeena wax badan ayay u soo jiidaysaa
dalka Soomaaliya ayaa waxa uu soo ifbaxaya mustaqbal dhalaalayo midaana waxa daliil u ah horumarada isdaba joogga ah ee maalin waliba lagu tallaabsanayo waxaa muuqanaysa in dhaqaalihii dalka uu kor u soo kacayo haatan uu wadanka uu marayo in horumarkiisii ay ku loolamaan shirkado kala duwan wax soo saarkoodana uu marayo meel wanaagsan dadka waxay inta badan sheegaan inay u baahan yihiin in la helo gawaari qiimo jaban misna tayo wanaagsan dadka Soomaaliyeedna waxay doorteen wadadii horumarka iyo rajada wanaagsan waxayna dacis ka dhigeen geesna iskaga riixeen wax kasta oo u keeni karo dib u dhac iyo mustaqbal xumo waxyaabaha la keenayo inuu noqdo waxyaabo dalkeena horumar gaarsiinaya nidaamkiisana kaabayo runtii korontada aragnaa ma lahayn korontada saddexda qaanada baabuurta dhinaca laga wada maana lahayn in marka aan si fiican uga fakarno maadaama aan soo kabanayno maadaama aan ka imaanay inaan la jaan qaadno nidaamkeennii dalkeenna oo lahaa iyo meesha aan u soconno dhalinyarada waxaan u soo jeedinaa runtii maadaama markaan aragno dhalin badan oo shaqo doon ay dhahaan waxaan baranay public administration waxaan baranay public health waa loo baahan yahay laakiin meesha dalkeenu ka burburay waa farsamada maadaama dhalin badan ay dhalinyaro badan halkan ay fadhiso waxaan ku boorinaa dhalinyarada inay bartaan cilmiga farsamada sida mechanic engineering oo kaleeto iyo sida warshadaha loo sameeyo maadaama agaasimihii wasaaradda uu joogana iyada laftarkeeda inaa u fududaysaan dhalinyarada sida ay ku baran lahaayeen farsamadaasi hawl walba oo lagu dhaqaaqayo waxaa hubaal ah in ay ka soo dhex muuqanaysa caqabado shirkadaha Soomaaliyeed ee ku leh ganacsiyaha gudaha dalka alaabahana ka keena dibadda ayaa waxay la kulmayaan caqabado ka soo wajahaya shirkadaha kale ee dibadda ay ku xiran yihiin ama ay la tacaamulaan iyaga oo isku daya in ay joogto u noqoto suuqyada ay ku haystaan Soomaaliya shisheeyuhu marnaba ma ogolo in la gaaro isku filnaansho dhan walba ah iyaga oo hadba abuuraya dhiilo ku salaysan danahooda gaarka ah ha yeeshee taasi looga bixi karo midaynta dadaalada kala duwan ee tamarta sida gaarka ay u leeyihiin bulshada Soomaaliyeed toddobaadkani intaasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka horumarka dalka aad kala socoteen warbaahinta qaranka qaybaheeda kala duwan waxaana idin la socodsiinayay maxamed cali juxa waxaana igala qayb qaadatay afraax maxamed cabdilkariim tan iyo isbuuca soo aadan waxaan idinkaga tegaynaa nabadda ha waarto noloshana ha wacnaato wassalaamu calaykum